بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرايد مال لها أما الحبلود لها أما سنة الله هاد بدي سانو يرو ما أنت وحقوق الصنية بيرتن إلا ذا إذا بتشوف كورس فان تاو صوغاتي شركة جرايد ما أنت وحنا كهاليا إذا مضى كلا دون السومالي لان يحقوق ذوده يسيد وحا أيهين أي كيه سومالي لان إنك الصوغاني في عنين أنا قف شعبا إن عيدا كهالله وايو ما هبونا وحرق قف كشعب كاهي إنه عيدا كهالله إنه دريس كعيدا كسوقاته إنه لبسانه دريس كستكالر كقبصده أنت صو سيدو ذي حرق وينو وأنا جاي هتنا لكن ما أنت أنا كان خاص قول عين وحن كهالله إذا ماذا السومال لاني كلا دوان جد يتبت بقى يعني وحن لا هاي هدين هاي دولة السومال لان دولة waxaynu ku nahay waa ciidanka dawlad waxaynu ku nahay waa ciidanka run ahaantii dawlad laba oo isaysata oo amar kala qaadato oo kala dambeyn leh oo hawlaheeda iyo waajibaadkeeda qarannimo gudata waxaynu leenahay waa ciidanka ama gudaha jooga ama dibadda jooga ama badha joogo markaasi waxa jirta waxaynu ganacsado waxad ganacsada ku tahay waa ciidanka baarlamaan oo waxad baarlamaanka ku tahay waa ciidanka guurtii ay waxaad guurtii ku tahay waa ciidanka dad iska shaqaysanaya waxay ka shaqaysanayaan waa ciidanka keeriyooluhu wuxuu keeriyoonka wax ku qaado wuxuu keeriyool ku yahay waa ciidanka sidaas awgeed ciidankeenu waa ciidan iimaan leh waa ciidan qaran waa ciidan dhab ah sida awgeed haddana waxa la inooga baahan yahay shirkadaha ganacsatada cid kastaba inay isbarbar taagto ciidanka oo aan lagu hadlaynin dawladda quraan dawladda horta ciidankii siday tiri waxa weeye war adu ciidanku yahay ninka ciidanka intuu guri uu leeyahay seexda waa wax tirsan ama maba dhacdo dhaxanta inagu inoo taagan yahay habeenkii inagu inoo wareegaya inagu gaar inagu inaga haya waa deer inagu meersan sida awgeed inaynu garan weyno waxaynu ku nahay dad iyo ummad iyo qaran waxaynu ku nahay inaynu garan weyno waa mushkilad waxa weeye in la ilaaliyo dayaca ciidanka in la isbarbar taago in qof kasta iyo muwaadin kasta waxa la oranayaa madaxweynuhu muxuu ka qabtay ciidanka war madaxweynuhu muxuu ay imisa arimood buu qabtaa waxa weeye dadku wuxuu dadku war mashiinidaynu ka liidanaa shinidu intay meel gashaabay boqorkay dooratay ilaashatayo meel dhigatay iyaga soo adeego shaqeeye inaguna islaantii keeriyoona weyda waxa leeyahay madaxweynaha waxa leeyahay keeriyoona iyagii war waxa kan intaynu ka baxno ummaddu waxay ummad ku tahay farkeli fool ma dhaqdo inaan cidna lagu hadlaynin inaan shacabku cid ku hadlaynin inaan ganacsatadu cid ku hadlayn inaan shirkadu cid ku hadlaynin madaxweynahana waxaan leenahay awoodda ugu badan waxaad saartaa maanta waxa aynu halbowlaheenu waa ciidan halbowlaheenu iyaynaan dayicin awoodda ugu badan cidna ha kala tashanay waxaad saartaa ciidanka mudnaanta koobaad waxaad siisaa ciidanka kala duwan ee qaranka Soomaaliland ama gudaha jooga ama dibadda jooga ama badha joogi waxaynu dawlad ku nahay waa ciidanka inaad ilaaliso inaan lagu leedin dhex marin inaad ahmiyadda ugu badan siiso ciidanka waayo ma ahaanayno wax jira badee ma ahaanayno ruuxantii ma nihin heegan waxay yihiin bacadka waxay joogan qorraxda dhaxanta meel kama galaan oo bacadka kama harsadaan oo habeenkii ma seexdaan waxay u soo jeedaan inta u heeriyeen waa inagu haddaynu markaa garan weyn markaa madaxweynaha waxaan leenahay xilka ku saaran uu balaaran yahay inkastoo meel kastaaba qabyo ku tahay awoodda ugu balaaran waxaad saartaa ciidanku waa halbowlaha dhiigu maray inoogu weyn markaasi ciidankana waxaan leenahay war ilaa waxaan nahay geedka harsanayseen baanu nahay waanu isognahay haddaan naga dhaqaaqdaan inaan bacadka istaagayno sidii awalba aan loogu direedeen waxa ka helaysaan ciidiina iyo calankiina ka helaysaan abaalkiina cidna ka suguna sida awalba noo ilaalinayseen heeganka noogu ahaydeen ilaahay baa idinka jisaay marinayay sidiina u ahaada waxaanu leenahay madaxweynahana حتى وحي لو قرشيه ciidanku mala waxba dhexda ka soo yar noqday ha gaadheen ciidanka ha gaadhin waxa la yirina waa khalad waxan maqlay xitaa bacad jooga askariga faranta jooga uu leeyahay markuu fasax yar qaato waa laga jaraa waa yar maqlay ruuya baan waxa wallahi war maayo laakiin waxa weeye marka waxaan leenahay ilaalinta qaranka cidda heeganka oo habeen oo maalin u soo jeeda waa ciidankuna waxaan leenahay cidna nagu hadlaynana ummadiina dalkiina
dawladdiinna cidna ha ku halayna sidaa heeganka ugu haydeen ilaahay baa inoo kiindiray sidii uu ahaada insha allahu laakiin waxaanu ku dadaalaynaa xuquuqda aaleediin hadday caafimaad tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday wax kasta tahay iyo hadday saa tahayba inaa heshaan madaxweyne ciidanka waxa weeye wax xataa guryo la dhisayo waxa mudan in loo dhiso ciidanka waxa fiican inaynu carruurtooda ogaano inaynu xaaskooda ogaano gurigiisa ma yimaado isagu carruurtiisa lama ciyaaro uma soo hoydo marka inaynu inagu u ilaalino waa waajibina saaran madaxweyne aad iyo aadna waxaan u salaamayaa ciidamada qaranka meel ay joogaanba bad iyo beri iyo gudahaba aad baanu idiin salaamaynaa dadaal baanu idiin geli doonaa dalkiina iyo dadkiina ka heli doontaan ilaahay idankiiba wixii aad doonaysaan ee xuquuqdiina ah insha allahu maalin dhow qof waliba askari buu jeclaan doonaa maxaa askari u qoran weyday insha allah sidaan ku rajo weynahay ilaashada waddankiina idinkunbaa waddanka awalba ilaalinaya iminkana ilaashada annaguna intii aanu karaankiya waxa weeye maanta waxaan u soo jeesanaynaa dawlad iyo shacabba shirkado ganacsato tijaar cid kasta waxaan u soo jeesanay ilaa waxaan wax ku nahay waa idinka inaan idinka idiin soo jeesano ahmiyadda koowaad siino aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa waa salaamantihiin ciidamada qaranka gudo iyo